شرم بويو طبعا سديت سنة جيرو وأنا صو صار لما تانا وجي كاميرا مساعدين أسي إلك عصم حكرمان شرم بوي حكرمان وش هذا شرم بوي عرور واي تايرسنت على شرم هذا إنه مقدش كعرر وقرب وعرر صح هذا بسوي لنا مقدش wacan oo wanaagsan dhammaan walaalaha qalbiga meel kasto aad joogtaan soo dhawaada ayaan idin leenahay waa muuqaal yar oo iska qaraaxa ah oo markaasi aynu ugu talagalnay in daawadayaasheena aynu la wadaagno hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like ta share ta iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana hanaga ilaabin like ta intaan ba saar ku dhihin saar si meel fog muuqaalka uu u gaaro dabcan muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa qaybtiisa hore iidaadi oo kamid ah dadka aadka u shactarada badan ee baraha bulshada caanka ka ah Cabdifataax iidaadi inta badan wuxuu ku dhagaa hadba qofka markaasi isaga ay isqabtaan waxa si la yaab leh loo baahiyay muuqaal uu ku karbaashayo Daahir Calasow isla markaana uu sheegay in uusan ku xadgudbi karin Sharmaboy Sharmane uu magaalada Muqdisho ku soo celin doono iidaadi waxa uu kamid yahay dhalinyarada aadka u qalbiga fiican ee qabyaalada aan aqoonin hadda Nairobi ayuu ku sugan yahay waa nin reer Muqdisho ah inta badan looga bartay muuqaalada aadka u qosolka badan ee shactarada leh oo uu soo bandhigo waxaana muuqaalkan marka aad si eegto laga dheexan karaa in iidaadi waxyaabo badan oo sax ah uu ka hadlay dadka qaar waxay u maleeyaan in iidaadi uu yahay nin waalan laakiin ma ahan waa nin daruufuhu ay la degeen laakiin hadda kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay oo meel kasta oo tago aad iyo aad loo ixtiraamo aad iyo aad bulshada u dhexgala oo qabiil gaar ah aan lahayn muuqaalkan iska qaraaxada ah qayb yar oo kamid ah hadii aan idin soo gudbiyo صاحبه مدام كل شيء قايع ظاهر على السوق ينك الله الكعس شو يفهم يسكي يشيل علي صح يدار على السوق يركي آلا يعني أنا من سؤالين انا غير ما انا شو يفهم يا انا ظاهر على السوق إيه على السوق هذا الجيل لما بحن شو يفهم حتى أنا ما فهمت هولندي شغل ما هايو لعد عيار وكمولي شو يفهم أنا عرهي سؤال شرم بكره شرم بويو طبعا سديت سنة جيرو وأنا صو صار لما تانا وجي كاميرا مساعدين أسي إلك عصم حكرمان شرم بوي حكرمان وش هذا شرم بوي عرور واي تايرسنت على شرم هذا إنه مقدش كعرر وقرب وعرر صح هذا بسوي لنا مقدش ديار حمرنا أنا يحرمت صح داير على سواد وحمر إما هذا ليه وحرك هذا عدول يا كعلا عدول شينا علي ما بقى جلع اي واجري الصومالي داير كامل اندر سنه يا داير علي الاندر داير على سوق ما بقى هذا القدير ويسوق رسولين واقف انت ما هو فعل هذا عدول يا كعلا عدود يلا داير على مش عدول فاجسين ولا لين أبغى كعلا وراني داير على سوق دواوينكيا يا دواوينكيا مقدش اسمه كان كانوا ميا وكعبنا أصلا أبغى جانا ساي هذا أبغى يا كعلا وهذا هذا القدر محوي صعد هذا القدر صاحب بدي وعني شافت إسيان لكن هذه قبيل داير على سكر صار داير على سؤالي بكارم كل شيء اللي بحب بناقص الجفاء السؤال عليه ها كعب صنع مالك مطبقة وكعب صنع مالك dabcan wuxuu ka hadlayaa arinta Daahir Calasow oo leeyahay arinta Sharmaboy oo ku qaldan tahay Sharma inaga ayaa soo saarnay magaalada Muqdisho ayaan ku soo celinaynaa iyo waxyaabo kale oo lamid ah Sharmaarke iyo Daahir waa tii dagaal u dhexmaray dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay guud ahaanba dadka ka hadlay intooda badan waxay yiraahdeen arintan waa in si hoos loo xaliyo inkastoo Daahir Calasow haatan kadib baaqiyo badan oo loo diray uusan ka hadlin arintan oo si uga gaabsaday hadalkiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa
in bacdul doorasha uusan Sharma Boy kusii jiri doonin saaxada fanka Soomaaliyeed laakiin hadda doorasha lagu jiro la mashquulsan yahay oo uusan doonayn in waqti badan uu ku bixiyo marka laga soo tago iidaadi oo hadda si kaftana u hadlaya laakiin waxyaabo dhab ah ka hadli kara waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo wili baraha bulshada ka jeediya baaqa la xiriira wiilkan iyo asxaabtiisa in la iska sii daayo oo faraha laga qaado cidna aysan ku xadgudbin banaanka laga maro ninka ragga ahna Soomaali waxay ku mahmaahdaa ciilka cadaabta ayuu ka doorbidaa taasi oo micnaheedu yahay in ninka ragga mar walba uusan doonin in la ciilo oo ka jecel yahay in markaasi laga leexdo oo banaanka laga maro oo wixii asaga uu sameysanayo uu sameysto horaan codkan waan ugu biirinaa haddana waan kusii xoojinaynaa in daahir haddaba uu ka gaabsado arrintaas sidaan uga gaabsado Sharmana haddii uu doonayo magaalada Muqdisho haddii uu doonayo dhinaca iyo haddii uu doonayo maamul goboleedyada kale ee dalka haddii dibadda uu doonayo isaga xor uu yahay oo meesha uu doono dunida uu ka tagi karo ninka fanaanka ahna horta sidiisaba xuduud ma laha ninka wariyaha ah xuduud ma lahan sidoo kalena waxaan xuduud lahayn qofka dhakhtarka ah iyo abwaankaba meel alla meesha ay doonaan ayay aadayaan qofka uu aadayaa bulshada ayuu u adeegayaa mana la dhihi karo warniyo reer hebel ayaa tahay meeshan ka bax maanta wuxuu ku sugan yahay Puntland reer Puntland waa tii showga ay u kala kiciyeen oo showgii ugu qatarsanaa ee dhul Soomaaliyeed lagu qabtay loo qabtay wuxuu soo qoray aan arkay Sharma Boy xageed jeclaan lahayd dadka ay weydiinayaan mugta xageed jeclaan lahayd showga xiga inaan ku qabto waa su'aal isweydiin mudan marka comments ayaan sii raacay qof wuxuu leeyahay Muqdisho qof wuxuu leeyahay Laascaanood qof wuxuu leeyahay Hargeysa qof wuxuu leeyahay Boosaaso qof wuxuu leeyahay Jowhar Hiiraan Galgaduud Gaalkacyo marka la eego Guriceel Dhuusamareeb meel kasta oo dhul Soomaaliyeed ah Kismaayo dad baa dhahaya dad baa Gaarisa dhahaya dadku waxay doonayaan in siyaasadii iyo buuqii iyo qabyaaladda horta laga nasto sida oo ay tahay inta badan dadku waxay u badnaayeen xagga magaalada Muqdisho oo yiraahdeen maadaama fanaan Muqdisho ka soo baxay aad tahay muddo dhowr bilood hadda Muqdisho aad ka sii maqan tahay waxa qurux badan in Muqdisho aad ku soo laabato show aad ku qabato showgii ugu dambeeyay oo Sharma uu ku qabtay magaalada Muqdisho ay uu eersaday culayska badan u keenayna waxa uu ahaa showgii Axmed Aarshe iyo uu la qabtay gabadha reer Hargeysa fanaanada Soomaaliyeed ah Najma Nashaat showgaas sidoo kale waxa uu iska ahaa show iska siyaasadeysan oo dadka qaar ay siyaasadeeyeen laakiin inta badan waxay isku raaceen guud ahaanba dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada inay aad u jeclaan lahaayeen in magaalada Muqdisho uu showgiisa xiga ku qabto sidoo kale Cabdifataax Iidaadi hadalkiisa hadii aan ku laabano waxa uu leeyahay Sharma magaalada Muqdisho lagu soo celinayaa magaalada Muqdisho waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed anigu malihi adigu malihi Soomaaliyeed ayaa iska leh qofka deegaan uu ku noqon karaa uu kaaga soo hormari karaa qofka caasimadaha dunidana waa meel public ah dadku deegaankuna xaq ay u leeyihiin in xuquuq ay ku yeeshaan meesha oo taasi waa siyaasad oo hadda kama hadlayno sidoo kale intii uu socday showgii Sharma Boy jimcihii muuqaalo ay ka duubeen YouTubers badan muuqaaladaas oo uga hadlayay arrimaha qaar sida taageerayaashiisa meelaha ay kala sugan yihiin wuxuu dadka uu amaanay kamid ahaa dadka jooga Laascaanood ama Sool iyo meelaha Sool Sanaag iyo Cayn dhulka la isku yiraahdo oo uu sheegay in farxad weyn uu u rajeynayo inuu u hambalyeeyo in sharaf iyo karaamo uu hayo waxaana markaas la taagnaa aan filayo in qof ka soo jeeda Sool ama Sanaag uu garab taagnaa oo sheegay taageerayaasha aad bay ku jecel yihiin sideed u aragtaa wili waxa uu yiri hadii aniga madaxweyne Muuse Biixi ii ogolaado inaan tago Hargeysa ama Burco ama Boorama waan tagi doonaa oo cid iga xigta markaas ma jirto waatii heestii halo Muuse Biixi iyo saxiixinaadani xirin uu soo qaaday laakiin live kale uu ka dambeeyay oo aad ay u dhibsadeen reer Somaliland oo kaliya aad uma dhibsan xitaa reer Puntland ayaa dhibsaday laakiin markii dambe raali gelin ayuu ka bixiyay
هذا اللي دمانتي عاد يفتح إيدادي وحو موجي درين لميدا درين كأمد الصوماليات إن شرما بوي فرصة للسيو إن شرما بوي مقالة عاصمة دايه مقدشة سنبات وقصة لابتو كليجينا معها مصلح ميداية ديق درجو لمان تيم كيسا إن سنبات قليلة أي كوي مادان مقالة مقدشة وان كاقا مادعلنا يا داوشاد مقال كان هدي أي تايم مركي وقوري سو channel كانت صابقتين نقصوا بير سبسكرايب صار جنبلال كفرو لايك شير iyo qaybta commentiga in fikirkaaga inoogu reebta naga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad u garab taagan tahay guuxa wararka tube muuqaalkan kan xiga waxaan rajaynaynaa inagoo nabad iyo caafimaad qabna inaan dib isugu soo laaban doono mar walba like-ta iyo share-ta ayaa dhiirigelin gaar ah inoo ah mahadsanid